madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka qayb galay xaflad lagu abaalmarinayay guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee SEED kuwa oo soo gabagabeeyay qabashada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku matali doona dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Munaasabadan abaalmarinta ahi waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada cusub ee labada aqal, wasiiro, mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale. Munaasabadan oo daarnayd abaalmarinta guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu ammaanay dhammaan xubnaha guddiga doorashooyinka. ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka waxa uuna ka sheekeeyay sida ay ugu suurta gashay in ay u soo gabagaboobaan xildhibaanada labada aqal. koonfur galbeed waxaa taalay 69 kursi oo aqalka hoose ah baarlamaanka iyo 8 aqalka sare ah. wuxuu u dhigmay laba maamul goboleed kuraasta taalay sida aad la socotaan. isla markaasna habraacyada iyo waqtiga lagu ballamayay isku si loo ballamayay oo looma eegayn maaragtay maamul walba maaragtay kuraasta taal. maamulka kuraasta taal oo 30 kursi ay tahay iyo koonfur galbeed oo 69 kursi ay taalo isku shaqaalay ahaayeen, isku waqti ay midlaayeen, isku si loo shaqeynay, isku habraac ahaayeen. saas darteed waxaan juhdi gelinay in maaragtay aynan ka harin dadka balse aan ka horeyno oo aan ka hordhamayno. waxaad marqaati u tihiin marka laga reebo Somaliland oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho iyo maaragtay gobolka Banaadir kaliya inay naga hormareen dadkii ku xigay maamul goboleedyada labada deegaan doorasho ahaa inay noqotay koonfur galbeed. madaxweyne Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ku booriyay xildhibaanada labada aqal in ay gutaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday. koonfur galbeed iyo guddigooda waxay sameeyeen wax in la sheego laguna faano dadka Soomaaliyeed oo dhan ay uga horeeyaan ayay sameeyeen. haddii marka dadka Soomaaliyeed isma sheegaan ay noo qoori waayeen inayna sheegaan annaga is sheegeen. marka ugu horeyso waxaan ahayn state-kii ugu horeeyay ee dhaqan geliyay heshiiskii 17 September oo baqdinta badan laga qabay oo ahaa in labadii deegaan doorasho la qabto. dadka Soomaaliyeed oo dhan ay walaac iyo shaki badan ka qabeen. dadkii xaqiijiyay bilaabay u dhabar adeegay si sharaf leh oo qurux badan ku soo dhameeyay baa doorashada saa la socotaan muddo dheer iyay soo qaadatay. jadwal badanaa la soo suubiyey, muddaa la soo qabtay, 20kii bishii horaa la soo qabtay, intaa la soo qabtay. ugu dambeyn shirkii ugu dambeeyey waxaa lagu heshiiyey 15 Maarch in lagu soo gabagabeeyo. waxaan ahayn haddana dowladdii ugu horeysay ee soo gabagabaysay 15 Maarch. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, Muqdisho. dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda. dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.